dadweynaha ku nool caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa ka hadlay caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan qabsoomidda doorashada golaha wakiilada Soomaaliland oo qorshaysan sanadkan dabayaaqadiisa waxayna sheegeen inay ka mid tahay arrinta saami qaybsiga oo qaar ka mid ah gobolada dalka cabasho weyn ka soo yeedhayso waxayna xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo madaxda xisbiyada mucaaradka u soo jeedeen inay dhameystiraan waxyaabaha qabyada ah waxana hadaladoodii ka mid ahaa waxaan u arkaa mar ardayna waan hayo siyaasadda dhinaca kuma fiicin laakiin waxaan u arki lahaa in sida ugu fiican ee dadku u kala xaq loo leeyahay in loogu qaybiyo golaha wakiilada anu kulay doorashada waxaan arkaa ama saami qaybsiga kulay sharci maanta yaala ma jiro dhalinyarada deehan iyo himilaan leenahay inaan ka qayb galno electionka maanta ku jira Soomaaliland marka waxaan soo jeedin lahaa doorashada maadaama waqti badan aan loo hayndin in maxay la sameeyo saamigii hore lagu galo doorashada oo maanta waqti kale oo muddo kordhisay ma helna maanta golaha wakiilada waxay joogaan 15 sano joogaan maanta inankii maanta waa joogaa oo u codeynaya marka waxaan rajaynahay in sharcigii hore ama muxuu ahaayay institutionka hore markii hore la dhigtay in lagu codeeyo arrinta saami qaybsiga waxa weeye dadka kii runta loo sheegayo jawaab uu bixinaya waxaanu ahayn laga sheegayo jawaab uu bixinaya waxaad moodeen arrinkeedu ku dhamaaday in la isu jawaabo oo haddii qofka runta loo sheego ama maxaan ku dhahay wax ka duwan loo sheego labadaba inuu jawaabo oo dabadna yiraahdo qofkii shalay hadlayay baan ka daba hadlaya in inta xigmad laga dhigo waa nasiib darro inagoo 30 sanadood cagacagaynayno oo dawlad iyo xukuumad sheeganayna waa inaga reer waliba meel ka hadlaya annaga lagu go'daa iyo annaga lama dhaafi karo iyo cid laga badiyay ma jirto iyo cid laga awood badiyay ma jirto in laga dhigo free waxa weeyaan in la isku qabqabsado meesha ma taalo ama boore ma had noqoto ama saaxil had noqoto ama maroodijax had noqoto waxa weeyaan cid waliba inteebaa doonaysaa in allaala inta rabtaan cod bay ku soo baxayaan la soo baxay in la yiraahdo weey waxa dhici karta waxa aan ku tusi lahaa in reer badan iyo dad badan oo hadli jiray ay fashilmaan waxa ila muuqataa ama aan u arkaa in indhaha la iska soo riday oo waliba si badheer cad la iska soo riday haddii Soomaaliland doonayso inay runta ku sheegto beelo badan baa tabanaya oo cabanaya wala sameyn karaa wax ka caban karaan waana loo yeeli karaa maaha beesha dhexe inay isku koobto wax walba inaga xilkii ugu badan inaga wasiiradii ugu badan maamulkii siyaasadda inaga ugu badan marka labada daraf ee dhinacyada ay cabanaya waxaan oran lahaa marun qaylada iyo hadalka joojiyaan si doonayaan loo sameeyo waxaan oran lahaa horta cabashooyin badan baa jirta beeluhuna waxaan ku yiri way kala duwan yihiin marka sida runta laga hadlo beelana waxay qaateen kuraasi aad u fara badan beelana wax ma haystaan sida riyalida beelafyadan darafyada sida sool iyo awdaloo kale waxa 100 jeer ku soo labalaamaya beesha dhexe oo ka kuraas badan taasina cadaalad maaha wixii dawladda Soomaaliya ay ku ridnay waxay ahayd cadaalad darro iyo saami qaybsi haddaan tan wax laga qabanna waxaan ku mid ka fog bay keeni kartaa waxaan oran lahaa dadka cabashadooda ayaan la dhibsan waa in la dhageystaa waa in waxaan ku yiri waxaadan adigu yeeshan walaalka aadan marsiin waxa weeye beelaha darafyadu waxa weeye cabatinkoodu dabcan inay isdiiwaan geliyaan oo si buuxda codkooda ay wax ugu doonaan waa laga maarmaan waana wax jira waan oran karaa waana loo baahan yahay doorashada in waqtigeeda ku qabsoonto oo waxaan leenahay insha Allah xukuumaddu waa inay waqtigeeda ku qabataa doorashada waana in laga helaa xisbiyada mucaaradka oo ay iyagu dhaqan galiyaan sidii waqtigeeda ugu qabsoomi lahayd oo ay qayb ka qaataan oo qaybta ay leeyihiin anu waxaan leeyahay hal eego baarlamaanku ha eego madaxweynaha loo gudbiyo guddi ha loo saaro wax la isla ogol yahay ha lagu qaybsado kuraasida baarlamaanka goboladana cabatikooda hoos loo eego anigu intaasan soo jeedin lahaa waxaan leeyahay gobolada fara badan oo cabanaya baa jira madaxweyne dalkaada ka madaxweynahaana lagu doortay codkii shacabkana waad ku joogtaa meesha waxaan leeyahay cadaalad ha leego si transparent ummadda wax lagu qaybiyo man leeyahay Axmed Maxamuud Cumar Axmed Dayax telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Hargeysa